أنا وحنا حسبك وطني ما أنت يا بريبة ويوسف محمد بارنا أنا قدورن معنا نين مشاهدة ودل كان قريبة يا دورن معنا عاد راح عيران دورنا ما أنت يا بريبة waxaanu go'aansanay inaanu xisbiga wadani ku biiro si fiican ugu biiro rag iyo dumar inaanu ku biiro iyo waayeel dhammaanba inaanu ku biiro ayaanu go'aansanay annagu dadka qoonsaday imika wadani ku soo wareegay baanu nahay magaaladana waxay u badan tahay wadani bay u badan tahay orodkii horeetaba haddaan kaga abaal waayey oo aan ayaan qura loodhan eega wuxuu joogo maanta isweer maxay ku gaaray kulmiye dhowr iyo 10 sanadood baanu daba soconay wixii uu noogu ballan qaaday inuu noo qabtana waa noo qaban waayey wadani baanu nahay yar iyo weyn waxa ii farxada magaalada Taalabuur oo ah tuulooyinka aan degaan ahaan ka soo jeedo inay maanta aqligeeda iyo cududeeda iyo codkeedaba ay la barbar taagan tahay xisbiga wadani soo wadani kuma ridno waa madaxweynihii inaga saari lahaa caqabad kasta oo jirta waa Cabdiraxmaan Cirro Soomaa dadka reer Taalabuureed aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa mahadda Ilaahay baa iska leh sida aad noo soo dhaweyseen ee farxadda leh maanta waxa aynu haddii alla ka dhigo waqtiga xiga aynu iska nadiifinaynaa olole nadaafadeed baynu samaynaynaayo calamadii kulmiyaynu iska fiiqaynaa hore reer Taalabuureed haddaanu nahay dhammaantayo haddaad tihiin xisbiga wadani waanu idin taageersanay si xaq baanu idin taageersanay lima ducaan idin raacinaya waxaan idin leeyahay guulaysta aan nahay dhalinyarada Taalabuureed waxaanu taageersanahay xisbiga wadani si mug iyo miisaan leh baanu taageersanahay dadweynahan iyo shacabkan markaa dhalinyarada haddaanu nahay inaanu si mug iyo maamuus leh u soo dhaweynayno taageeradeedana ula dul joogno xisbiga wadani insha Allah taala sheegaynaa waxa tuban dadkii reer dhayelay oo wadani soo dhaweynaya oo taageersan oo aan ahayn qoys iyo qolo gaar ah reer dhayelay halkan waxa laga saadaaliyaa guusha qoladan bildiga aqoon ducaynaysa maanta leeyahay waxa xiriireen waxaan leeyahay Silaaya laga hayaa salmawada lixle war bildiga wada mujaahide ha ku daasoominaan idin leeyahay iska soo daaya waxaan leeyahay taageerayaasha ballaaran ee xisbiga wadani ee ku nool magaalada Maxamed Ugaas soo dhawaada qalbi furan ku soo dhawaada gamca furan ku soo dhawaada sida aad taageerada u muujiseen ayaa xisbiga dhexdiisa insha Allah sida aad taageerada noogu muujiseen ee aad diyaar ugu tihiin isbedelka ayuu insha Allah xisbiga wadani idin qiimeyn doonaa anu kalo iyana idinku hambalyeeynaa ina idinku xisbiga casuunteen oo u yeedheen idinkoo dareenkiina muujinaya aad iyo aad baan ugu hambalyeeynaa waxaan filayaa dadweynaha reer Balidhiig horeysa iyo dambaysaba waxay ku suntanaayeen waxqabadkii ama taariikhdii dalka ayay ku suntanaayeen maantana waxaan filayaa inay ololaha isbedel doonka ee xisbiga wadani inay hormood ka noqon doonaan baan filayaa aynu noqonnay oo aynu wax la qabsanaynaa oo aynu taageeraynaa oo aynu codkeenna siinaynaa xisbiga wadani soo sidaa ma aha xisbigaasaynu maanta nahay ee reer Balidhiigna dareenka ay muujiyeen ee quruxda badan waa dareenkii lagu yaqaanay taageeradii ay hoos u dhacday in marba leeyaho kaadhba meel laga xaday iyo haddii la kale dad baa meel lagu xareystay iyo cod baa liibsaday war codka iyo shacabka lama iibsan karo qulubta dadka waxaan siyaasad ahayn oo lagu hanan karaa ma jirto baashi mar haddii bahawgaas markabka ka dego wuu daloolaa xaqiiqo weeye mar haddaannu abtiyaal ka degnay idinna fari u sheegateen annana aannu iskaga degnay horta kaas waa daloolaa weeye waa ku daayey dhammaanteen shalayta waxaa ahayd inaynu kulmiye wada ahayn kulmiye dee midna waa dhammaaday midna waa dhalanayaa weligeen ma aha dee inaynu tuurta ku sidno kii dhammaaday dalka waxbuu u qabtay waana la shaqaynay waxna ka sheega mayno maantoo ka caba mayno laakiin ka dhalanaya iyo hormuudada hor soconaya dadkii way liqi kari waayeen marka waxaannu sidaa daraaddeed aannu annaguna ku biirray haddaannu nahay madax dhaqameedada xisbiga wadani dhammaantayo anuunbaa malaatoon balaynkaysii soo taageen raggu uurku ku wada haystaa maalin dhow bay dilaacinayaan inta isnabaysaana soomaaliduna waxay tidhaahdaa dhuumasho dhabarku muuqdaa dhuumasho maaha
waxaan leeyahay ragga xilka haya ee ummadda metelaya ee hargeysa looga yeedhayo daqiiqad loo gacan haadinayo ha u yimaadeen baableeshinka ay cuqaasha iyo salaadiinta u sheeganayaan oo wax ha u sheegeenoo meel ha ku jeeyeen yay maalinba meesha balagga yar laga lulayo u cararin iyagoo ummad matela war annaga arrimaha gudahanna lagama xukumo idinkaanna xukuma haddiina lagu gardaroodana cidda wax naga dhicinaysaa waa idinka looma jeedo dhiidhiibsi aarbaa dhurwaadhal u maleeyaaye buu yidhi waryaa waxa xiniinyale oo raganimo leh nin tol u haysta ilaahay baa faarax cabdille naga dheliyey cidna ka biqi mayno cidna ka amran mayno waxa aan leeyahay soomaalidu waxay ku mahmaadaa oodi ab ka dhow war wuxuu yidhi ninkii bulaale baarjeex la odhan jiray baa dhulku mari jiray baa la yidhi dabeetana sow galbeed buu qabtoo reeruu hoyday wuu soo noqday wuxuu yidhi meel walba annagaa marroo gobi innaga buu yidhi gobi innaga waa ninkii yidhi maray cunde intuu isagoo marya xunxun reeru soo hoyday ayay ka seexdeenoo markaasuu soo labistay markaasay awr soo qaleen oo adhi soo qalqaleen oo caano soo liseen naa maray cun buu yidhi maroy hadda waa maxaad ku tidhi bay yidhaaheen kelmaddaa dee waa idinkii habeen hore iga seexday buu yidhi haddaba gobi innagu waxaynu diidnana waynu diidnay waxaynu yeellana waynu yeellay nimanka hormuudka noo ah ee dawladda kulmiye noogu jira dadkii halkii aad dhigteen ayay yaalliin 40 cashana waa idiin hadhay annagu soo taanbaabina miyaynu wax ka xistinay nin walba soomaynu dooran malaa'ina muraad halkan iiga dambayn maayo yaa wuxuu yidhi deelqaab fagaaraa iblays kugu duquulaayo dibna hadal ka yimi yaa caggee loogu dawgalay dadka hadallada ka shubaya dariiqyada ee wax iska odhanaya dadka ay wax ku yihiin ee ay u taamayaan waa dadkan waana doorannay waxna inagumay soo celin macal salaamaynu leenahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu farteenna cidna ka bari maynee waxaynu ku codaynaynaa halka cadaaladda iyo dimuqraadiyadda iyo dibudhiska Soomaaliland ku jiro halkaas waa meel ma wax qof lagu eedeeyaaba sideebaad cagaf ugu gudoontay dareenkiinu miyaanu dareen ahayn in la diidayay miyaydaan garanaynin in horumarkiina la diidayay miyaydaan garanaynin in hore socodka la diidayay miyaydaan garanaynin dareen yeesha waxa la idinku celinayaa meel ay ka timaadeen baqan mayno cidna u amran mayno waxaan leenahay fartaynu ku bedelanaa udubna fartaynu ku bedelay qoladanna fartaynu ku bedelaynaa xusbiga waddani baynu u codaynaynaa isagayna waxaynii ka doonanaynaa annagaana safka hore taagan hamranna mayno sidaanu kulmiye uga dooni jiray baanu uga doonaynaa wassalaamu calaykum waa magaalo waxbarashada ku wanaagsan nasiib wanaag waxaanu u helnay fursad haddaan nahay xusbiga waddani inaannu ku guulaysannay laydhkii sistem soolarka ahaa oo aannu markii labaad caawaannu xadhigga uga jarayno waa nasiib darro in shan shaacadde oo ay tahay ardayda ugu fiicanay magaalooyinkaay ka soo baxaan intixaamaadka balliweyn oo dhanna lagu qaadi jiray inay madow ahaato oo xisbiga waddani dabeetana imanka madowgii uu ka biiyo iyadoo xukuumad la eegmaday jirto aad iyo aad baannu idinka raalligelinaynaa waxaan guddoonsiinayaa ardaydii kaalmaha hore gashay iyo macallimiintoodii karaamada lahaayda ku soo tacabtay lacag $500 oon odayaasha ugu dhiibayno aad iyo aad ayaa u mahadsantahay